بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa Axmed Xuseen Diiriye magac dheer Juujoole waxaan kamid ahaa ciidamada Galmudug qaas ahaan ciidamada madaxa xukuumadda Galmudug Dr. Shaakir Cali Xasan oo ilaalada qaaska ayaan kamid ahay aniga waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel ka sii joogan si lagu dhiirigeliyeen amniga sugudiisa ay noola qayb qaateen si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka degmada Qurceel siday noola qayb qaateen dhagarqabihii maleegayay qaraxa inaan gacanta ku dhigno waxaan leeyahay maadaama gaarto waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego si igu suurta gashay dhagarqabihii qaraxa maleegayay saan u qabtay anigu waxaan ahay ilaalada koowaad markii ay dhamaatay xalfadii dhamaadkeedii ay taysii dhamaahaydo oo dhagarqabahan ii yimid wuxuuna yiri waxaan soo jeedinayaa gabay xalfadii dhamaan rabto uu yiri gabay baan soo jeedinayaa markaas baan dareemay dhagarqabahan inuu gabayni soo jeedinayna wax kale oo wado markaas waxaan go'aansaday in dhagarqabahan labadiisa qacnood ku dhago ana sideen intay madaxdu ka baxayso oo meesha laga baxayo madaxdu ay ka baxayso dhagarqabaha ana qacantiisa haya oo ay u qacansiyeen ciidamada amniga inuu sameeyna iska nuxnuuxin markaas waxa soo gaaray ciidamada si gaarka u tababaran oo qaraxyada iyo fashiliya ayaa soo gaaray markaasna waxay fureen fuusihii iyo wixii kala fureen waa maasintiin shacabka Soomaaliyeed dhamaan meel kasta joogto